Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu isku soo noqod wanaagsan videogan doonaynaa inaynu ka hadalno maanta waxa loo yaqaano chat gpt kaas oo muddadii ugu dambeysay social mediaha ku dhex jiray dadkuna inta badan ay ka waramayeen so chat gpt muxuu yahay marka hore oo chat gpt waxa weeyaan wuxuu ku dhisan yahay open ai waxa weeyaan waa company research ku sameeya xoogana saara waxyaabaha u baahan artificialka iyo fahanka dheeraadka u baahan chat gpt wuxuu ku fudaydinayaa inaad ka raadin karto afkaar badan iyo waxyaabo badan aad ka raadin karayso laakiin intii u dambeysay soo bilaabo 2021kii waxyaabihii ka dambeeyay oo dhan badanaa kuma soo saarayo waayo dhaatada badanaa muu kaydin waxyaabihii hore mar walba waxa lagu sameeya horumar baa lagu samaynayaa waxaa laga yaabaa isaga laftirkiisu hadhow inuu free noqon way dhici karaysaa haddii haddaba iminka jaabino qaabku u shaqaynayo chat gpt marka hore waxaanu soo furanaynaa browserkeena any browserkaad isticmaalayso xaggan ayaad ku qori doontaa chat.open ai.com sida markaad ugu qortid wuxuu kuu soo saari doonaa websiteka chat gpt okay sidan markuu kugu soo baxo chat gpt markuu sidan kugu soo baxo websiteku laba option buu ku siinayaa waa login oo haddaad leedahay account hore hadda haddii uu kugu cusub yahay maadaama sign up baad odhan doontaa kadibna waxaad buuxin doontaa detailskaaga sida emailkaagaad gelin doontaa haddii aad hore u lahaydna waxaad odhan doontaa login baad odhan doontaa amba si automatically ayaad ugu xidhi doontaa google-kaaga hadda anigu ma baahni inaan dib kasoo hagaajiyo so waxaan odhanayaa si automatic igu xidhiidhi gmail-kayga okay san ayaan ugu xidhiidhin doonaa si automatica gmail-kayga okay wajhada u horeeya haddaba chat gpt kugu soo bixi doono waa sidan xaggan waxaa ku qoran recentiga waxyaabihii hore aad hore u baadhay saynu arkayno xaggan kalena waa si chat caadiya oo wax lagu qori karayo oo wada hadal caadiya lala samayn karayo sen aad odhan karaysid kadibna aad diri karaysid waxa aad qortay so haddaba balseyn u tijaabino qaabku u shaqaynayo xaggan ayaynu ku qori doonaa waxyaabo ayaynu ka baari doonaa iska caadiya sida bal waxyaabo iska taariikhi eegi doonaa waxaan oran doontaa bigas so xaggan waxaan iska qori doonaa bal waxyaabo waxaan eegi doonaa inuu isoo saaro waxyaabo iska taariikhiya dagaalkii ugu weynaa adduunka labadii dagaalee ugu weynaa hadda idhaa xaggaa tuu haddaan geliyo labadii dagaalee ugu weynaa caalamka soo mara hadday idhaa bal ebad oo search garee so saynu wada arkayno xaggan baaritaan ayuu ku sameynayaa calaamadda markuu kuu soo saaro mar walow waxa aad gelisana xaggan ayuu soo geli doonaa khaanadahan aynu arkayno ayuu dib usoo geli doonaa so haddaba wuxuu iisoo saaray dagaalkii koowaad iyo waktiga uu dhacay ilaa muddadii uu socday sidoo kale kii labaad muddaduu bilaabmay iyo muddaduu dhammaaday haddaynu qaadhanna ka eegno waa iska si caadiyo waxaa la odhan karayaa intanba dee haddii iminka google ku qortid uu kuu soo saarayaa laakiin intuu kaga duwan yahay waxa weeyaan isaga waxyaabaha iska heerka ayaa lagu talagalay waxyaabaha adag ee aan la helin badanaa sidoo kale wuxuu kuusoo la eegaa waxyaabaha xaliska u baahan oo kale xalidda loo waayo kale ayaa lagu baaraa waayo dhan marka laga eego waa iska google caadiya so iminka su-aal iska caadiyan weydiiyo iska taariikhiya so maadaama oo channelkeenu yahay iska technology haddii aynu weydiino saynu ku baran karayaa programmingka oo waxyaaba iska tan ahaan oo kale ah waxaad arkaysaa inuu tallaabooyin badan ii soo saarayo marka hore wuxuu ku leeyahay waa inaad luuqad doorato luuqadaad baran lahayd kadibna aad soo dejisato waxaad ku qori lahayd luuqadda oo u yaqaanaan development environment wax loo yaqaano kadibna aad heshid meel aad wax ka baratid waayo any language ba waxay leedahay resourceska iyo meelaha laga akhristo sidoo kale inaad qortid code inaad qortid badan
sana oo arkayno wuxuuna siinayaa talooyin aad u badan. Laakiin muhiimaddu waxaan ugu baarayay waxa weeyaan haddii aad u baahan tahay oo kale talo ahaan oo kalena uu siin karayaa. Okay, sidoo kale bal haddii aan ku baaro in aan ka heli karayo waxyaabo iska coding oo kale ah, haddii aan ku qoro simple project project haddii aan ka baaro HTML and CSS luqadda lagu dhisay ah, saynu arkayno kolley project aad u weyn ma soo wado, waayo wuxuu markiiba soo saaraya waxa weeyaan linkiyo iska yaryar. Tusaale ahaan waxyaaba iska normal uu soo saaray oo luqadda ku dhisan. So wuxuu ii sameeyey iska waxoogaa weli u wadaa projectigii, saynu arkayno projectigii u wadaa. Wuxuu ii sameynaya ID buu u sameeyey, sectionskii u sameeyey, qaybo fara badan oo projectisku waxyaabihii looga baahnaayo dhana ah ayuu ii soo saarayaa, ilaa footerkii buu u sameeyey saynu wada arkayno. Okay, xaggaas ku joojiyay baan filayaa. Haddii aan codekan iminka copy garaysto oo ku eego bal online code editor oo la yidhaahdo code sandbox la yidhaahdo, waa code editor online ah weeyaan, oo sida applicationada oo kale u shaqeynaya laftirkiisu. Waxaan eegayaa codekan uu isiiyey bal inuu shaqeynayo HTML-ka. Xaggan ayaan ku qori doonaa code editor online ah ayaan xaggan ku qori doonaa oo la yidhaahdo code sandbox la yidhaahdo, ayaan bal ka baari doonaa codekan inuu shaqeynayo iyo in kale ayaan ku eegi doonaa. Online code editor la yidhaahdo code sandbox. Kadib san markuu igu soo saaro xaggan ayaan odhan doonaa. Kadibna waxyaabo badan ayuu leeyahay sida wuxuu leeyahay React oo kale ayaa lagu baari karaa, Vanilla oo kale, Angular, React. Kadib HTML-ka ayaan soo dooran doonaa, anigu HTML ayaan u baahanay keliya. Sidan markaan usoo doorto kadib waxyaabo wuxuu iska haysiiyey iska tusaale ahaan oo kale ah intan buu code gareeyey. Codekii ayaynu soo qaadan doonaa bal projectigu ina siiyey, inaga caawiyey isagu. Haddii aan iminka intan save gareeyo, saynu arkayno wuxuu ina siiyey project dhammaystiran. Tusaale ahaan xagga hoose footerkii uu noo sameeyey, xaggana wuxuu noo sameeyey servicekii waxyaabaan qabanay, xaggana wuxuu noo sameeyey abootkii waxyaaba service uu noo sameeyey, sidoo kale contactigii waxyaaba lagaga xiriiriyey. Intan maaha kolley website iska tusaale ahaan wuxuu iska sameeyey project iska yar weeyaan oo sawiraan iyo content waxyaaba badan kuma dhex jiraan, content aad u fara badan, laakiin waa runtii content wax lagu bilaabi karaya weeyaan, oo hadhow kaa caawin karaya wax badan intaad laynan badan qori lahayd amba waxyaaba badan diyaarin lahayd, isagaaba already kuu sameeyeyba. Marka runtii waxaan usoo qaadanayay waxa weeye barnaamijka u diyaarinay in uu yahay ChatGPT mid wax badan kaa caawin doona runtii. Intaad meelo badan wax ka raadin lahayd in isaga si fudud uga helaysid. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad sii share garaysaan videogeenan, channelkeena subscribe dhahdaan. Waxaan rajeynayaa inaynu dhowrka bilood soo socda kun gaadhno. Marka insha Allah haddaad channelka cusub tahayna subscribe saar, sidoo kale videogana like saar. Assalaamu calaykum.